سكول معناه بندق أبوه قد عقبه والله قري تاريخي يهلك كيسي أسرائيل محمد جمال عقاب إنه كسر بندق إنه مجال ستوكهولم تاريخ لما تهاي سجاري لما تكي بشي أبريل لما تكون يثبت بنكا وأنا مع لسه برامشكن هل سكول المعنى واحد ينوسو والغرب ينوسو ديارين والصومالي نورد كلتشر runtiina ujeedadu waxa weeye in aynu dhiirigelino waqti wixii sugaan ama wixii taariikh qoran iyo waliba ku galo buuqyo badan dhawaan soo baxay oo sanadkii hore soo baxay laakiin si Sweden lagu soo gaaray oo jeclaynay inaan soo badhino una qoray qoraaga Xasan Cabdi Madar kulaba xilligii ay barnaamij bilaabay way gaaray marka runtii in dadka ay mid soo qadimay sharfo oo ixtiraama ay mudayiin waxaan iska sii bilaabanayna waxaana inoogu yeedhaya haddii ay idhaahdo maxamed xaaji ismaaciil oo odagayna halka fadhiya inuu qur-aan inoogu furo inoola duceeyo kadibna barnaamijka qaybihiisa aynu geli doona insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صلى الله على سيدنا محمد. انت كتب waxaan yara raacsanaya kelmad keliya hadhow haddii odayaasha waxa laga weydiiyo taariikhahan oo kale buugga waxaa inoo akhriyaya raggii soo akhriyey waxna inooga sheegi doona laakiin in yar oo gaaban oo aan dheerayn oo laba eraya haddii aan ka tilmaamo maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ah dhulkii laga qoray buuggan ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya arrimo loo baahan yahay in uu qofka bini-aadmiga ummad hogaaminaya yeesho ayuu ku tilmaanaa arrimaha waxaa ka mid ah in uu qofku horta diin aqoon yahay diinta uu ku fiicnaa si fiican oo aad arki doontaana barnaamijyo uu diinta kaga hadlaayo ama ku sharxaayo ayaa ku arki doontaan buugga waxaanu lahaa dulqaad iyo dad qancin bini-aadmiguna hadduu intaa leeyahay waxa kaloo uu lahaa oo dheeraad ahaa dad aqoon buu ahaa ninku hadduu dadka yaqaano uu markaa isagu u talinaayo wuu hogaamin karaa hadduu diintooda yaqaanana markay isu qabto uu ku kala saari karaa haddii uu dhaqanka iyo dhaqaalahoodu heerka uu hay leeyihiinna oo heerka uu taagay dhaqaalahoodu ummadaas uu ku hogaamin karaa oo dalkana hadduu yaqaanana dalka ayuu uu ku darsanaya arrintaasoo wuxuu kala garanaya dalka meesha daadsin leh meesha beeraha ah meesha buuraha ah meesha biyaha ah meesha jiiraalkii xooluhu ku baxsadaan ee ay ku soo joogaan iyo meelasha kale intaaba sifooyinkaas ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye waa mid lagu yaqaanay intaasaan ku soo gaabinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ومهندسي هاي محمد حاج إسماعيل برامج كده نسقسي وضع دونا ما دام هو أي منطقة وجدوا من السنة تيبوكا دبلية دينا دونا وحقا لكن سوى حنقول يريا عبد الرسال محمد محمود وهكذا نجوا وما نصير إلى مريض دونا وجدوا نحوي إبراهيم سوى بوكو يعني كل البرامج هذا دليرة مجالات الدجاج سوكونا هلابور كانوا اللي بيجيليو وهلابور كوجايونا يلو دايان مركا عبد السلام سولو ويليا سولو عبد السلام
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد waxaan taad ugu mahadnaqayaa sharafta ka soo qayb gashay bandhigan buugga ducaqabe ee Allah yarxam arraahimiin ee hogaamiyihii siyaasigii halgamaagii weynaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya maxamed xaaji ibraahim cigaal oo taariikhdiisa iyo halkuu ummaddan kaga yaalay aanaynu soo koobi karin haddii la islaam ka warrama annaguna aanu dhallinyaro nahayba kolley odayaashii ay noogu xoog roonaa ay soo bandhigi doonaan insha allah. marka aad baan idinku mahadnaqayaa marka sharafta Somali Nordic dhammaantiin aad baan idinku mahadnaqayaa waan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa kadib kolley nin yaroo marka la arko dhallinyaradan badaadan ah oo abwaan iyo maynu gaadhin heerkaa kolley oo abwaanku waxa weeyaan waa nin weyn oo dee maaragtay culus oo da iyo maaragtay waayo aragnimo badan leh. markaa kolley waxa weeyaan annaga inteeda waa mar hiddo ay tahay iyo mar ay hal abuur yar tahay oo wax yaroo xaga faalan iska samayna insha allah. intaa haddii lagu dhiirigeliyo kolley wax badan waanu naguna samayn doonaa hadduu alla idhaahdo. markaa hadalka waxba kusii dheeran maayo kolley waa inagu yeeriya waktiguna. waxaan doonaya inaan maanse yar soo bandhiga insha allah oo guubaabo ah. waxaan maansadaasi ay ka warramaysaa amba aan ka soo qaadanay waxa weeya waxa aan xasuustaa aabba igu odhan jiray gabay uu sameeyey waqtiyo toddobaateeyadii ayuu lahaa haddii aan cayno meesha oo caadin lagu uumay afrikaanka carradiisii baan cidhib ku naalnaaye codka bari baddeenna casbaan caabiga u nahaye culus geel cagayaraa adhi iyo lo'daan cuud ka dhigannaaye waxa aan cunnaa waa cad iyo caaniyo hadhuun. markaa ummaddeenu maalintaa markay taagnayd waxay cunaan gasiinka gooskoodu qabanaya ay cunaan iyaga gob bay ahaayeen gobanimay lahaayeen dadkeenu cuud iyo hilib bay diri jireen harag bay diri jireen iyagaa markaa qani ahaad ummad qaniga aynu ahayn oo ku faanto waxa ay leeday iyo waxa ay tahay ku faanta. maanta laakiin dhibaatada jirtaa waxa weeyaan wax kasta inay kolley gedismeen baynu wada aragnaa wax kasta isbedeleen oo dee maanta hadday noqoto wax dibadda laynooga keenay badanoo beriis baasto waxba beereenima qodanno waxba ma hayn oo gactifoon gacantay ku hadlayaan waxay xidhanayaan taas oo ay tahay weliba aynu gacmaha hoos dhigannaa aynu gargaar bidnaa aynu gacmaha sii hoos dhigannaa ka innagoo ilaahay inoo nimceeyey ummadaha kale nimcadaha aynu haysanana haystaan. marka gabaygu intaas buu ka warramaya insha allah. halkaas ayuu yahay ujeedkiisu. buwaagta ka sheekeynay waxa leedo taariikh nololeedka qofka biography. marka buuggan waa buug biography ah taariikh nololeeda. runtii waxaan anigu aada wixii soo talaha ku jeedinaa buuggan in la akriyo weliba da'yarta jiilka da'yarta ay runtii ay akhriyaan wax badan bayna keenayaan. xog badan oo runtii ka qarsoonay ku jirtaa xog badan oo nin oran jiray ismaan cumar raabi oo dhintay oo reer jabuuti hoo soomaaliyeed oo qoraa ahaa baa wuxuu oran jiray hadda kahor muddo laga joogo 10 sano waan jabuuti u galnay iyo asmara wuxuu oran jiray qofka aan taariikhda aqoonin waxba ma yaqaan. taariikhdu in la barto oo la ogaado waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka uu maartay uu ifiya ama uu nuuriya inuu horu socdo talaabo qaado. waa waxa inaga islaamku siirada kitaabka dhowr kitaabo sida loo qoray loogu sameeyey inaynu barno taariikhdii ummadihii naga horeeyey. waxaa markaa cabiri kartaa ood qiyaas kartaa waxa soo socdaa ood qiyaas kartaa walow cilmi qeyb ama waxa soo socdaa ilaahay iska leeyahay haddana odaras baa jira. saa la-aanteed bay taariikhdu marba waxay u tahay inay ifiso waxa soo socda. marka saa la-aanteed waxaa buuggan buug taariikheedna weeye buug siyaasadeed weeye buug dawashadeed weeye mid cilmo weeye. wuxuuna ka mid yahay dagaalka ama kaydka bugaagta afka soomaaliga lagu qoro oo inoo keena taariikhda. insha allah waxaan rajeynayaa buuggani inuu ka mid noqdo dhaxalka aynu ku faanno oo runtii aad dadka soomaaliyeed ay ugu faanaan oo inoo keena taariikhda. waxaana aada u soo dhaweynayaa oo aan mar kale soo dhaweynayaa inay kana codsana ummadda soomaaliyeed guud ahaan meela joogtaba in aada loo qoro oo aada loo raadiyo ummadda dadka indhaha u ah oo baadisiinta
ومدو أي كمان وتاريخنا وحلقة هذا يوحنا نقوله لكن مرحبا تقول إنتو وحلقة مشي رسول كم من الناس يوحنا مشي الله أبي جاني أبي داني لا هو أنت جاي عمل ضربنا مركو عويا ممكن تاريخ بدون عباسية هاي أدور يوم فعيا أنت سوى أنت على وجه كل يوم بعد الدورة وحي أنكوك فيه وكوك حتى لو نفسه إذا وحي أنسينا ومن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.